inuu halkan ka yidhi guurtiday dhagaa furaysta dhagaha iyo indhahaba haddaad Saleebaan u furaysato waxaan ummadda iyo caalamku ku heshiiyeen iyo xisbiyadu saacad kuma dari kartid Hargeysana dagaal kama ridi kartid waxaad doonaysaa in Hargeysa Yaman oo kala noqoto laakiin noqon mayso waxaan Saleebaan ku leeyahay odaytinimo muuji adiga iyo Siinaayaba laba nin oo 9 jir atin labada nin ee dalka u weyn baatiin xaaji cabdaydi ka weyn wanyar baa lagu daray wanyarka wax ka badan ummaddu diyaar uma aha halka waxaanu ka cadaynaynaa annagoo ku hadlayna magaca beesha koonfur Hargeysa iyo ilaa Beligubadleba waxa la leeyahay guurtida soo wada inaanay ahayn wax macquul ah saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda iyo Soomaaliland oo dhan ayaa isu tagtay ku heshiisay halka la dhigay guurtida wax farafareynaysaa yaani dadka xumaan u horseedi sababtoo ah haddii halka la dhaafiyo waxa soo baxaya wax aan la malaysan karin haddii beed maayo xisbigan maanta talada hayee Axmed Siraaye garwadeenka ka yahay odayga weyn ee maanta 9 jirka ee aanay ka maqnayn inuu cibaadeysto mooye wax kale waxaanu ku soo gaadhnay oo garanayaa halkan ka sheegi maayo ummaduna way garanaysaa iyo kursiga sidii aanu ku keenay ummaddu way karaamaysay inaad xasuusintiin mooye Allah u naxariistay Sheekh Ibraahim Sheekh Madar xilligu gudoomiyaha guurtida ahaa madaxweynaha dalka waxa ka isna marxuum cigaal عربي لبدي دامس قصور بشر كإلهي أبو ري وخالد الشوق مرمر بدعي شريين عقال الله ونحرس دعوة ونقوصيا وذيقا سواق قبنشري شيخ إبراهيم ورد دبسو ورنشري دبسو إن عقاله دبسو ورنشري وددك وحا يدلك وحا مقبتاني ما أنت لقى سوق دب وحا نلاقي سليبان ورلقا مفلين inaad maanta inta saddexdii habeenimo Hargeysa ka soo degto aad tiraahdo dhagaa ka fariisto umada waa ka qamam dhaaf hadalka miyahay hashi gowracna ma hadlaya hashi gowracna ma hadlaya war ma xasuusantay yaa dhiigeena kala badbaadsha maanta lama taagno lagu soo gud Saleebaanow taa ceelku waa ceelkii Hargeysa adiga iyo beeshaada waa la karaamiyay labadii kursi ugu sareeyay Soomaaliland baad ku fadhidaan dalka iyo dadka wuxuu la hadha